kulanti wanaagsan qiyaaray soo dhawaada caawa wax la yaab la ayaa dhacay marka aad fiiriso gobolka bariga dhexe iyo waliba xiisada meesha ay taagan tahay ninkan waxaan u malaynayaa inuusan kugu cusbayn waa madaxweynaha dowladda jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran ninka la yiraahdo Mas'ud Pezeshkian ninkan waxa uu leeyahay aniga iyo madaxweynaha ama ninka la yiraahdo hogaamiyaha sare ee wadanka Iran Mujtaba Khamenei wax xiriir ma lehin dalka Iran aha caawa xaalkiisu halkaas ayuu taagan yahay waxa uu leeyahay talooyinka iyo shaqada iyo waxaan qabanayna isaga iskale laakiin wada shaqaynta ka sukow in la gaaro hogaamiyaha ayaa nagu adkaatay haddaba waxa jira qaar kamid ah hogaamiyaasha wadanka Iran oo laga shakiyay kuwaas oo laga baqayaba Mareykanka inay xiriir la leeyihiin maxay tahay tuhumka laga qabo Qalibaf iyo Abbas Araghchi iyo waliba madaxweyne Mas'ud Pezeshkian waraysi gaara oo siiyay telefishinka dawladda ayaa barnaamijkan kugula wadaagaya xaalku waa adag yahay marka Iran gudaheeda la joogo isla war ka soo baxay Iran waxay leeyihiin casuumaad la yaab leh ayaa loo fidiyay mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dawladda Iran maxay ka shaqeynayaan Pakistan iyo wadanka Qatar muxuu yahay dalabaadka uu hoosta ka soo dhiibayo madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump oo hadda u muuqanaya dagaalkan gobolka bariga dhexe in uu doonayo inuu iska laalaabo oo dhamaantiiba Iran uu dhinac iska dhigo iyadoo dawladaha Carabtu ay aad uga fakarayaan xiisada taagan nimanka Xuutiyiinta ahaa ee wax ka yar 5 saacadood markabkii labaad oo dawladda Sacuudiga ay leeyihiin ay ku weerareen badda cas gaar ahaan gacanka qaliijka ayaa lagu soo waramayaa goor dhow in uu weerar ka dhacay dagaalka Iran iyo Mareykanka ma waxa uu gaaray xaaladii la fajibiska maxay tahay waxyaabaha ay banaanka keenayaan khubarada la yaab kale iyana waad ogaan doontaa telefishinka Al Arabi oo magaalada London uu fadhigiisu yahay isla markaana dalka Qatar laga leeyahay ayaa caawa sheeko taxliila oo aad uga yaabisay dhinacyada wax falanqeeya soo bandhigay haddaba muxuu yahay waxyaabaha gaarka ah ee la leeyahay arrintan wax oo la filan waayay noqotay waan falanqeyn doonaa Israa'iilna garoonkii Ben Gurion ku yaalay caasimada ayaa lagu kala cararay kadib markii diyaarad drone ay halkaasi soo gashay shirkadaha diyaaradaha halkaasi dadkii joogay pilotyadii wixii oo dhan nin kastaahi iyo qof kastaahi waxa uu noqday yaa furta oo maanta diyaaradan iga bixiya laakiin wax yar kadib waxa la leeyahay xaalku waa isbedelay diyaarad baa lagu kordhigayaa kaliya adigoo iska socda meelna uma leexan karaysid waa laga adeeganayaa farsamadan ma gaareen kooxaha dagaalka kula jira nidaamka Israa'iiliyiinta iyana si gaar ah ayaan arrintan u eegi doonaa habeen wanaagsan ayaan idin leeyahay khiyaarta ay nala socotay haddaba markaad eegto xodxodashada lagu hayo dawladda Iran iyo waliba kala firdhoodka madaxda wadankaasi Iran ma waxa la joogaa xilligii haddii ay dagaal sidan ku gasho ay jabi lahayd muxuu Mareykanku ka shaqeeyay isma lahayn madaxweyne Mas'ud Pezeshkian intii aan wararka Iran iyo dhacdooyinkooda tabinayay madaxweynaha wadanka Iran ayaa oran doona in la helo aayatullaahiga wadanka ugu sareysa waa mid adag taasoo caawa warbaahinta gobolka bariga dhexe ay aad u faaleynayaan kadib markii su'aal la weydiiyay madaxweynaha wadanka Iran ee leeyahay bal ka sheeka xiriirka Khamenei ma la heli karaa waa Mujtaba ninka hadda talada wadanka Iran haya laakiin waxa uu yiri ninkaasi in la hela waa nagu adag tahay hasaatee waxaynu ku shaqeynaynaa aragtida iyo waliba falsafada hoggaanka isaga uu rabo wadankan Iran la yiraahdo in lagu dhaqo tan waxay ka dhigan tahay xaqiijinta qayb kamid ah tuhun maalmihii ugu dambeeyay soo baxaya oo ku saabsanaa in qaar kamid ah madaxda Iiraaniyiintu ay dareemayaan culays weyn in lagu hayo isla markaana dadka la leeyahay tabar la'aan ayaa laga dhigay oo xagga hoggaanka iyo maamulkaba waa laga dheereeyay waxa kamid ahaa ninka la yiraahdo Mas'ud Pezeshkian oo madaxweynaha dawladda Iran ah arrintani waxay ka dambeysay tan iyo markii heshiiskii loo bixiyay afgaradkii Islaamabad dawladda Iran ay saxiixeen waliba madaxweyne Mas'ud Pezeshkian
garab ku dhow hogaamiyaha sare ee wadanka Iran ayaa ku tilmaamayay Qalibaf iyo Abbas Araghchi iyo Pezeshkian inay taladii wadanka marorsadeen isla markaana sumcaddii wadanka ay ku dheelayaan oo Mareykanka wixii uu rabo ay u sameynayaan laakiin hadda wixii la qariyo oo ilaa xaladoodu ay taagnaadeenba telefishinka dawladda waraysi uu siiyay Pezeshkian ayuu arintaa ku sheegay bishaynu ka soo gudubnay sidoo kale waxaa jiray waraysi uu bixiyay Maxamed Baqir Qalibaf oo isna hoggaanka sare ee wadanka Iran gaar ahaan afayeenka baarlamaanka iyo galka wada xaajoodka ninka gacanta ku hayay in waraysigiisa la joojiyo xitaa warbaahinta baarlamaanka Iran ay ka falceliyeen oo ay ku tilmaameen madaxda telefishinka iyo waliba warfaafintu inay u dhaqmayaan si qalqal gelinaysa wada jirka amniga isla markaana sumcaddii baarlamaanka ay bahdilayaan haddaba ninkan waraysigiisa waxa uu ku leeyahay aniga waxaan ku shaqeeyaa talada Mujtaba Kamani laakiin joogitaanka hogaamiyaha sare waxa uu dalka u yahay awood weyn inkastoo xiriirkiisa inaan helo ay mararka qaar aad ugu adag tahay waxay noqotay wax oo la filan waayay sheekadan Mujtaba wuxuu leeyahay wali si rasmiya ugama soo muuqan fagaarayaasha tan iyo markii uu xilka qabtay isagoo bedelay aabihii Cali Kamani sida warbixintu ay sheegtay dhinaca kale Pezeshkian waxa uu sheegay in hogaamiyaha sare ee dalka uu leeyahay aragtida heshiiskiisa afgaradka balse uu cadeeyay baa liri haddii heshiiska loo helo taageero 3 meelood meel golaha amniga sare ee wadanka Iran in uu ogolaan doono uu saxiixi doono sidaa daraadeed heshiiskii Mareykanka lala galay ninkii Kamani ahaa maba ogolayn xuleeya haddii 3 dalool oo kamida qaybaha uu ka kooban yahay golaha amniga qaranka wadanka Iran heshiiskaasi isku raacaan ninka Pezeshkian la yiraahdo uu soo saxiixay aniga waan aqbali doonaa doodiisa marka halkaasi taagan tahay Pezeshkian waxa uu intaas ku daray heshiiska uu taageeray 12 xubnood oo kamida 13 xubnood ee golaha sare ee amniga taas oo ku tilmaamay in ay muujinayso in hoggaanka sare ee wadankana uu aqbalay qiimeynta qubarada dawladdu ay sameeyeen taasi marka waxay ka dhigan tahay in si weyn loo soo dhaweeyay arinta caawa taagan Iran meelay u socotaa hoggaanka iyo talada wadankana xasaasiyad iyo xiisad ayaa ka taagan tani waa qaar kamida wadamadii Mareykanku ay iskaleen wixii qaarkood haleelay oo lagu kala tagay waxa ugu fudud aan soo qaadan karnaa markii saraakiishii ciidamada iyo waliba dhinacyada kala duwan ee Venezuela la gatay oo Nicolas Maduro inta la soo qaban waxa jirta xog sirdoon oo soo baxday oo tilmaamaysa in hoggaanka ciidamada qaranka wadankaasi la iibsaday sidaas darteedna si dhib yar madaxweynaha iyo xaaskiisa oo hurda qolkoodii jeefka saqdhaxo habeenimo la baxay dhinaca kale Iran waxay caawa ku dhawaaqday inay heshay fariin uga timi dawladaha Mareykanka Pakistan iyo waliba dalka Qatar taas oo la xiriirtay in la casuumay Qalibaf iyo Araghchi wada hadalla ayaa la galayaa bay yiraahdeen taas oo ujeedadu tahay heshiiska madambaysa in lagu galo مسؤول كترسان وزارة أمورها دبادة إيران ayaa sheegay in dawladda Iran ay heshay fariimo uga yimid Mareykanka kuwaas oo muujinaya in Washington ay diyaar u tahay in ay dib ugu soo laabato waajibaadkeedii iyo ballanqaadka ay hore u galeen ku-xigeenka wasiirka amuraha dibadda Iran oo u qaabilsan arrimaha sharciga iyo waliba xiriirka caalamiga ayaa arbacadii maanta ahayd sheegay in dalkiisa aanu marnaba aqbali doonin shisheeye oo lagu maamulo marinka Hormuz isla markaana aanay suuragal noqon doonin marinkaasi gacanta dawladda Iran inuu ka baxo wuxuu carabka ku adkeeyay in heshiis kasta oo la xiriira marinka Hormuz uu noqon doono mid u dhaxeeya dawladda Iran iyo Oman oo kaliya hase haatee aanay wax kaalina ku yeelan doonin dawladda Mareykanka ninkan kaaliyaha wasiirka amuraha dibadda ee dhinaca sharciga iyo xiriirka caalamiga waxa lagu tilmaamaa in uu kamid yahay ragga ugu adag ee dawladda waliba siyaasadda amuraha dibadda markii ay joogto diidanba qaabka ay wax u socdaan Kamani xafiiskiisa aadka ugu dhow مسؤولka waxa uu sidoo kale sheegay in marin biyoodka cusub loo dejiyo maraakiibta ku safra marinkaasi uu yahay Hormuz mid ku meel gaar ah ilaa iyo 4 bilood oo kaliya ayaa la isticmaali karaa ayuu yiri
dhinaca kale wararku waxay sheegayaan in dowladda Pakistan ay casuumaad rasmi ah u dirtay gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Baaqir Qalibaaf iyo wasiirka amuraha dibadda Iran Abbas Araghchi si ay booqasho ugu tagaan Islamabad xilli ay socdaan dadaalo diblomaasiyadeed oo la doonayo in lagu dedejiyo xiisadda aadka u sii xoogaysanaysa. Geertayna la socotay warar xasaasi ah ayaa noo soo socda oo kamid ah garoonka ugu weyn Israa'iil oo lagu kala cararay iyo waliba markab Sacuudiga uu leeyahay oo mar kale la weeraray haddii aan arrimaha diblomaasiyadda ee wadanka Iran iyo dhacdooyinka caawa taagan aan sii guda galo. sida muuqanaysa qoraaga la yiraahdo Marwan Khablan waxa uu qoray sheeko xasaasi ah oo baahiyay qaybta afka Carabiga ee telefishinka Al-Arabi saldhigiisu yahay wadanka Ingiriiska laakiin laga leeyahay dalka Qatar. ninkan waxa uu leeyahay marka laga yimaado wararka maalinlaha ah oo warbaahintu ay tabayaan Iran iyo Mareykanku ma waxa ay gaareen dagaalkii la fajabiska ahaa maxay tahay midba midka kale waxa uu ku eegayo. qoraagan waxa uu qoraalkiisa ku soo qaadanaya sheeko ashqaraar iyo la yaab leh waxana uu leeyahay Trump waxa uu doonayaa markii uu lafaha ka jabiyo duqeynta uu ku celceliyo wadanka Iran khilaafaad gudaha uu kala dhaxdhigo wadanka gaajadu ay ku badato in uu mar kaliya ku qaado weerar hugan ah oo aad u xoogan halka dawladda Iranna ay leeyahay waxa ay rabtaa Trump in ay ciyaarsiiso buu yiri ilaa iyo doorashooyinka dhexe ee midterm elections ka la yiraahdo Mareykanka la gaarsiiyo kadibna Trump uu ku fashilmo doorashooyinkaasi xisbigiisa jamhuuriga ay talada lumiyaan dawladda Iran oo aan jocdheena in ay u muuqato in ay gool degdeg ka gaarto dagaaladan gobolka bariga dhexe ka taagan sidaas darteedna ay noqoto aarka gobolkan fadhiya. dhinacyada marka aad fiiriso mid kasta waxa uu leeyahay aragtidiisa falsafadiisa hogaamineed istiraatiijiyadiisa iyo dhinac kasta oo wax ka sameyn karo laakiin Trump oo hadda Ruushka iyo Shiinaha ay ku soo baxeen waxa uu leeyahay faylkan waan ku daalay 2 sanadood ayaan wataa oo qoorta la eegaliyay howlo badan ayaan gobolkan bariga dhexe ka qabsan lahaa marka waxaan rabaa inaan iska dhaafo. haddaba qoraagu waxa uu aaminsan yahay in tani ay tahay ay ku timi kadib markii Mareykanka uusan ku guuleysan baaliri ujeedooyinkii wajigii hore ee dagaalka sida uu inuu ku qasba nidaamka Iran inuu isdhiibo ama xitaa inuu xukunka ka tuuro taasoo Israa'iil ay doonaysay Iranna waxa ay uga jawaabtay iyadoo cadaadis ka saartay marinka Hormuz ay u adeegsatay sidii qunbuliyad nuclear oo kale. sidoo kale qoraagu waxa uu sheegay wareegga khilaafka Mareykanka iyo Iran waxa uu leeyahay marxalado dhowr ah balse labada dhinac waxa ay ka taxadirayaan in xaaladdu aysan isku bedelin dagaal buuxa oo haddii dhinacyaduna ay galaan dagaal adag uu midkoodna ka soo bixi karin sida uu rabo guulaha ugu dambeynta ah in uu gaaro. aragtida Tehran oo kale marka aan fiirino iyadoo waxa leeyahay waxay rabtaa qiimaha shidaalka in ay adduunka hawada geliso Trumpna ay ku horfadayso meelo kala duwan oo kamid ah gobolka taasina ay ka dhalatay baaliri in xisbiga jamhuuriga ay lumiyaan doorashooyinka oo dimuqraadigu ay ku guuleystaan. inkasta oo qoraaga Marwan Khabani oo xilka qaadista Trump uu arko iyo waliba in laga adkaan karo mid adag oo Trump yahay nin daruufo ay badbedelaan oo xitaa la arki karo buu yiri isagoo Mujtaba Khamenei ag fadhiya oo Iran yimi oo wadanka Iran amaanaya sidii uu kal hore u sameeyay markii uu madaxweyne Xi la kulmay oo ninka China hogaamiye Vladimir Putin markii ay wada kulmeen bartamihii sanadkii hore iyo waliba in sidoo kale ninkii jagaxirka markii uu la kulmay Kim Jong Un oo kale oo uu ku tilmaamay nin birlaba oo wax badan qaban kara. marka tusaalooyinkaasi loo fiiriyo Trump baa leeyahay waxa uu sameeyay lama baciidsan karo in uu la kulmi doono Mujtaba Khamenei oo Trump uu Mujtaba amaanaya la arkay. marka Trump waa nin daruufaha lacagaha iyo danahu ay aad u badbedelaan oo aan mabaadi'da wax weyn oo saameyn ku lahayn. marka waa nin ku day ah hadii u marto sida Nicolas Maduro oo kale hogaamiyaha wadanka Venezuela waa doodsanaya kadibna waxa uu leeyahay waa nacas aan waxba gelin haddii raggan ay noqdaan bir adag waxa uu leeyahay waxba laga ma qaadi karo. waa qoraahdii Soomaalida ay ahayd haddii ay bactaana waa bujayna haddii ay birtaana waa raacayna. marka
trump haddii ay madaxda iiraan bir noqdaan waxa uu leeyahay saaxiibayaal saluud waan idin wataa haddii ay bir bac noqdaan waxa uu leeyahay waxaan idiin sheegayo dhagaan ku dhufanaya laakiin su-aasha ugu weyn waxay tahay sida qoraaga uu miiska keenayo arrimaha nuclearka iyo marinka hormus sidee laga yeelayaa waxa xataa taa u arkaa in iiraan qudheeda marinkan hormus ay isku adkaynayso laakiin haddii trump uu wax badan uga fuqo iyana ay wax badan ka fuqayso hadda marka waxa wax jaangoynaya waa trump iyo iiraan israa'iilna waxay noqotay parasite ama noole ku dhex nool ee colaada la yidhi taasaa marka waxay u arkaysaa in ay xaaladdu sii ballaaran karto gabagabadii qoraagu waxa uu ku doodayaa in qaabka isku dhaca uu marayo heer uu daalaya baa layidhi midba midka kale maadaama labada dhinac ay ku jiraan tartan waqti adaga trump waxa uu doonayaa in marinka hormus si deg deg ah loo furo goor doorashooyinka dhaxalka iiraan ay isku dayaysa inay cadaadis ku saarto kahor inta aanu trump ka bixin culayska siyaasadeed ee doorashooyinka haddii aan heshiis laga gaarin kahor doorashooyinka qoraaga marwaan qabaani waxa uu rumaysan yahay in iiraan ay noqon karayso mudnaanta koowaad ee siyaasadda dibadda ee trump inta ka harsan muddo xileedkiisa maadaama uusan markaasi wajahi doonin doorasho kale ama cadaadis siyaasadeed oo gudaha sidaasi darteed trump halkaas ayuu wax ka eegayaa iiraanna halkaas ayay iyana wax ka fiirinaysaa waayahay nimankii xuutiga ahaa ee gacansaarka la lahaa waddanka iiraan sacuudiga ayaa cabsi u shideen marka la fiiriyo sida ay hadda wax u soconayaan afhayeenka militariga kooxda xuutiga ayaa arbacadii mar kale ku dhawaaqay in ciidamadooda ay gantaal baalistiga ku weerareen markab shidaalo sacuudiga laga leeyahay oo lagu magacaabo days xilli uu maraya baa layidhi gacanka cadmeed caawa xuutiyiintu waxay sheegeen in weerarka uu qeyb ka yahay howlgallada militariga ee kooxda isla markaana marinbiyoodka hadda ay u arkaan inuu yahay mid xasaasi ah dhinaca kale iyadoo ay weli socdaan dadaalo diblomaasiyadeed oo lagu dejinayo xiisada gobolka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa uga digay baa layidhi iiraan in ay la kulmi doonto weerar culus haddii xiisadan ay sii socoto waraysi uu fox news iyo trump waxa uu ku sheegay in wadahadallada u dhexeeya washington iyo tahraan ay si wanaagsan u socdaan isagoo intaa ku daray in iiraan ay muujisay rabitaan ay ku doonaysa heshiis lagu soo afjaro colaadan sii xoogaysanaysa oo aan hadda waxba laga qaban karin ayuu yidhi haddii xaalku uu sidan ku sii socdo dhinaca israa'iil markii aan fiirinana kabtay maaragta ayaa ka dhacday garoonka bengorion nimankii gacansaarka la lahaa waddanka iiraan diyaarada ayay isku soo dirayaan diyaarad $300-500 oo dollar ku fadhisa ayaa daqiiqada keliya waxay khasaarinaysaa malaayiin dollar gudaha nidaamka israa'iil dagaalkii teknolojiyadda waa la isla fahmaya haddii dabaabaad iyo madaafiic weyn iyo kaarayaal iyo burburyaal xoogan iyo la kacin jiray hadda markab dhan ayaa waxaa quusinaya diyaarad $500 ku fadhisa waa qorshaha teknolojiyadda isbedelaysa ee dagaalka uu caalamka ku yeelanayo haddaba wargeysada qaar caawa waxay tilmaamayaan diyaarad aan duuliyo lahayn in garoonkii ugu weynaa israa'iil looga kala cararay sababo la xiriira cabsi laga qabo diyaaraddaasi inay waxyeello ballaaran geysato diyaaradda nooca aan duuliyaha lahayn baa layidhi oo la rumaysan yahay inuu waday halkaasi ku celiyo diyaarad nooca duuliyaha lahayn oo la rumaysan yahay in ay soo rideen ama ay maamulayeen kooxo ku sugan gudaha israa'iil ayaa si ku meel gaara u hakisay duulimaadyo ka socday garoonka caalamiga ee bengorion diyaaradan meel dheerba lagaba soo direen gudaha israa'iil baa la leeyahay waa laga maamulayay warbaahinta israa'iiliyiinta gaar ahaan janaalka 12aad ayaa caawa sheegay in la joojiyay duulimaadyadii soo degaya iyo kuwii baxaya garoonka kadib markii diyaaraddu ay hawada garoonka soo gasha xilli uu mashquul badan soconayay duulimaadyada ayaa dib loo bilaabay markii xaaladda la xakameeyo baa layidhi agaasimaha wasaaradda gaadiidka ee nidaamkaasi Moshe Benseken ayaa furay baaritaanka lagu doonayay in dhacdadan ay dhacday iyo cidda ka dambaysaba waxa ay salka ku haysay sidoo kale wargeyska la yiraahdo Israel Hayom ayaa waxa uu tilmaamay in la filanayo muddo 6 bilood ah in la hakiyo adeegsiga diyaaradaha rayidka ah ee droniska ah inta laga diyaar gareynayo baa la yiri sharciyada cusub ee nidaamyada isticmaalkooda qorayaasha ayaa
qorshayaasha ayaa la soo jeediyay baa layidhi sidoo kalena dhigaya in mararka hore ganaax lacageed laga qaado dadka jabiya xeerka halka mustaqbalka dambigaasi loo bedeli karo kiis weyn oo ciqaabeed mas-uuliyiinta nidaamka waxa ay tallaabadan ku sababeeyeen walaaca sii kordhaya ee la xiriira weerarada loo adeegsanayo diyaaradaha iswada kuwaas oo xitaa kuwa qaar ka mid a warbaahintu ay samaynayaan ay u eg tahay ay adeegsanayaan oo ay doonayaan muuqaalada inay ku duubaan in xaalka uga sii darayo habeen wanaagsan mar kale khiyaarta ay nala socotay falanqayntan qaybtan intan ayaan ku hakinaya laakiin markaad eegto hadallada madaxweynaha wadanka Iiraan maxaa lagu macnayn karaa ma kala tagii Iiraan bay noqonaysaa mise sirdoonkay ku dheelayaan raayul caamka ay rabaan inay warwareejiyaan maxay kula tahay magacaada ku bilow iyo meesha aad joogto kadibna aragtidaada si togan u cabir hilmaamin muuqaalka inaad like saarto YouTube-kana aad subscribe saarto aad baad u mahadsantiin